sida ay riishada ama baalka meesha suran uu isu rogrogayo u dheeliyayo aanu markaas si saaniye meel u taagnaan karin buu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qalbigi mar hadii qalbigu uu sidaa yahay iimaankana uu ku dul fadhiyo inuu marna kor aado marna hoos u dhaco waa dabiica marka uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa uu ku yiri la qalbu ibn aadam asra'u taqalluban min alqidri idha istajma'at ghalayana qalbiga aadanaha ayaa wuxuu ka degdeg badan yahay xagga sida dheri karkarayo dab la saaray oo kale isu rogrogo qalbiga ka daran buu markaas haddana wuxuu yiri idha istajma'at ghalayana markii aad u karkarto xadiis kale wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qulubta aadanaha dhanba waxa ay ku jiraan Allah subhanahu wa ta'ala fariis suu doonu ka yeelaa isaga rogroga meeshuu doonu u jiheeyaa arrinka marka wuxuu muujinayaa maxay in qalbigu uu aanu meel aanu thaabit aanu ku ahayn arrinka waxa ka dhalanaya marka iimaankanu marka inuu kor u kaco hoosna marka u dhaco waliyalika sallallahu alayhi wasallam waxa ku badnay ducadiisa allahumma ya musarrif alqulub ilaahay adaa qulubta rograge midka qulubta rogrogow thabbit sarrif qulubana ala ta'atik ilaahay qulubteena waxaad u leexidaa xagga daacadaada adiga hoggaansankaaga riwaayaad kale waxa ku soo arooray thabbit qulubana qulubteeda rabbi waxaad ku sugtaa diinkaaga ku sug riwaayaadkaas aan tilmaamayno dhan waa ahadiis saxiixa sheekh naasir meelo kala duwan marka ku tasxiixiyay allah subhanahu wa ta'ala macnaha soo tilmaamay rasuulna sallallahu alayhi wasallam allah wuxuu quraanka uu kiri inna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbihi ilaahay baba kala dhaxgalay ماشي waxa imanaysa tahwiil waxa laga yaabaa in qalbigaaga iimaanka aanu galin si marka filtration loo helo qalbiga si sahlan qalbiga iimaanka uu galo waxa loo baahan dadaal marka in la sameeyo walidalika waxaan u gudbayaa qodobadii biidni ilaahi subhanahu wa ta'ala maxaa muujinaya waxaan jeclaan lahaa qof walba inuu tirsado nuqtada laga helo hoos ka xariiqo midda laga waayana ilaahi subhanahu wa ta'ala ugu mahad celi aniga iska bilaabay haddaan iska helno qodobadan soo socda iimaankeena khatar buu ku sugan yahay kow haddaad is aragtid ama aan is arko ama qof kastoo muslim uu isku arka xaaladda soo socoto inuu macaasida uu ku dhacayo dunuubta teeda waaweynna aanay u kala socnayn dembiga uu ka daran yahana fududaysta waxaad ogaataa xaaladda khatar baa lagu jiraa walidaalika culimada waxay yidhaahdaan qofka markuu dembiga uu sameeyo uu maalin kale uu ku soo celiyo maalin saddexaad uu ku soo celiyo caadi u noqonaysa shayga markay caadi ay ku noqoto kadib kama xishoonayso wax khajala iyo xishood iyo sariig iyo dareemaysid ma laha fagaaraha la isugu yimaado waxa ka sheegaysa waxaas ban xal sameeyay guriyaan riba ku qaatay mushkiladaas baan galay allahumma sa'al laba ruux baan madaxa isku galiyay kuwii tolkeenaha kuwa kale ku soo duulay hub baan siiyay meelaha ka sheegaysa maxaa macaasi caada ku noqotay ولذلك فائدة كجرت قوله جل وعلا في القرآن الكريم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون آية دائمين محايا لمحا ولم يصروا كلية ما شاء الله وشاقه يضع سياق القرآن وإسوته محايا عدم الإصرار على المعصية إنه قفك آنوا دائمين وحي مودين قفك إيمان كيسا محايا هدو دائمه عادي ونقنا قفك مركي عادة ونقتنا وأذكتها إنها تكدى بعيدوها ومنكر ولذلك صلى الله عليه وسلم حديث وحوكيري كل أمتي معافى إلا المجاهرين ضد كودن دنبق ولا قاعد فيه إلا قليها مركب ما لها اللي يسوي ماذا كشيء مركب سوحيري صلى الله عليه وسلم يسوي الشرح يا مجاهرة وحيري قفبا حلا كلا حميسة ماينيا وهو بريسنا يا إيضا رب العالمين وأسطري أو ضبولي كذب صبح مركوا بريسو ضد كصهر فريسنا يا وحول لي عملت البارحة كذا وكذا حالي وحسن سميه حالي وحاسي وحس بان سميه ودرجتي قف با وحو سمينا زنا كدعيسه وشرح يا ماشي كبلابه ماشي كدمات الا ماشي كدمات حرام بو قال ماشي كبلابه الا ماشي كدمات شرح يا iyada wax sirriigana wajigiisa aan ka muuqan arrinka hadii la isku arko macaasida adoo la jahray adoo isku hadaad isku aragtay waxaad ogaataa iimaanka dacfi buu ku jira saadarteed waa symptomka ugu horeeya ee ugu baraarujinay arrinka labaad qalbiga oo engega qallayl noqda wax galaya oo khayrana aanu jirin ilaahu maanta hadii lagu aqriyo wax kasto ay kula ku taagantahay sawaa'un alayna aw 'adda am lam takun min al-wa'idin amana wa'di ama hana wa'dinin arrinku jinjin buu noo yahay meel buu noo taagan yahay harka marka la gaarana arrin sahlan ma walidalika
الله سبحانه وتعالى قرآن كوحى وكيري ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة انت كدب قلوبتين واي انجكتي وحين لم من نقطة سيدة دقحان توكل marka dambe waxa laga joogo dhagxaan in loo gafama dhagxaanta hadii qulubteena iyo dhagxaanta la isbarbar dhigo oo aan niraha dhagxaanta iyo annaga dhagxaanta anaga adag ama dhagxaanta nala mid hadaan niraha dhagxaanta waa loo gafay in loo gafana waxa muujinaya quraanka aayada marka la sii wado wuxuu leeyahay wa inna min al-hijarati yan loo gafina dhagxaanta waxa kamida lama yatafajjaru minhu al-anhar kuwa biyo ka soo burqada wa inna minha lama yashaqqaq fayakhruju minhu al-ma kuwa waxa jira dhanbalmo biyuhu ay ka durarsadaan wa inna minha lama yahbatu min khashyati Allah kuwa waxa jira soo dilan dilooma iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqay ayad kalena waxa ahayd hadii quraanka aan ku soo dajin lahayn buuraha dushooda law anzalna hada alqur'ana ala jabal waxaad arki lahayd isagoo dildilaacay marka dhagxaanta in loo gafamaaha Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku misaali waa misaalka ugu khatarsan ee aan dul marno in qalbigeena dhagax lagu misaaliyo qofkana markuu qofku ka soo taago wuxuu leeyahay ma dhagax baa tahay waxba ku gali waayeen xaaladda saddexaad haddii la isku arko iimaanka inuu dacfi uu ku jiro muujinaya waa maxay cibaadada markaad sugi weysid salaada marka lagu jira maankaagu maqan yahay dhammaanteena sidaa ah quraanka marka la aqrinayo ku ta'fiirinayn ducada adoo dhoohan baa gacmaha kor u taagaysa walidaalika sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laa yaqbalu aw laa yuqbalu دعاء من قلب غافل لاهي حديثك وحديث صحيحة شيخ ناصر وكشك على سلسلة شنبق لفردني سقال دعاء كسوف شي قلب دوهن إسلام مركانا هولا أو هولا كلا كون مشغول سن إلهي ما أقبله وحد أركي ساقف قد قعمها كل أتاقي أنا لسوا عن الدعاء ديس وحد أركي ساقف ما أنت تصبح إساء ولا دك كوها ماشى ومرة يستغفر الله إذا أنه فهمي وحا arkaysa subhana allah ilaalin aanu fahmin cibaadadii wuxuu ka baxaya meeshii iyadoo aanu dhadhansan xaaladda hadii la isku arkay iimaankeena dacfi ku jira xaaladda afaraad cibaadadii inaad ka caajistid oo lugu jiid aad ku tukatid lugu jiid aad xajka aad ku aadid jimcayaashii laga waayo dacfi weyn ayaa markaa jira walidaalika allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay munaafiqiinta wuxuu yiri idaa qaamu ila salati qaamu kusala haddii salaada u istaagaan iyagoo lugaha jiidaya ay salaadii aadayaan buuri waana arrin lagu yaqaan qofka munaafiqa waxa laga yaabaa xajkiya ku waajibay markaas wuxuu leeyahay sanadka dambe la gaaraya sanadka dambe sanad buu u rahananaya markuu isiraada hadda baxna wuxuu leeyahay sanadka dambe markuu 2 sano marayo 3 sano uu marayo 5 sano uu marayo baasaboorku ku aadi lahaan ilaahay subhanahu wa ta'ala gacanta uu galiyay diyaarna aanu hayn inuu dhaqaaqo ayaa waxa laga yaabaa in doodki marka uu yimaado ninka marmarsiyaha raasanaya ee xajki lama gaarin waxa laga yaabaa hadii telefoon loo soo diro la yiraahdo gurigii dariskeena xaaji Abbas uu lahaa waa $1,000 inuu meesha ka soo bixinayo ma taqaan markii isagoo xawaalada ku diro arkaysa inta ka horeysana waxa laga yaabaa inuu ku soo hordhigo 1000 cudur inuu ku soo hordhiga laga yaabaa yiraahdo meeshan bay ka dhacday inta haddaan isku aragno iimaankeena dacfi baa ku jira ولذلك علماء يرادين أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيري لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ضد قوم كتجي مايان إن الدب أسود جيان إلا إله سبحانه وتعالى يقول دم الدب عليه صفقة هراء ذو الجوجات كلابات مركات أداديسا هذا أركي صلاة الجماعة كده هيسا هذا أركي إن تكنكرت السنة تبقى جابين هيسا حالة ده هدي اللي يسكو أركي إيمان كي هوس بودعي ولذلك وحى لو يقانا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنبياء بإله مركو كهل لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وحى كوا أترتم أدك دق خيرات إلهي نبريه واتن آيات القرآن كإلا وعيابا لو أقول سكر وحى كمنا إن إيمانك وضعف وكجره قفك وسيحانا يا هبينك سبحي بوسوت توسيا إيضا وح يعني بروبلام مشكلة أنا يكون إيمان لكن وحى كيسا قفك وجهي سبدلا 10 دقيقة قفك وقصله 10 دقيقة مانكيسو مقي 10 دقيقة dadkii buu marka u gacan qaaday 10 daqiiqana uu xanaaqsay qof shalay salaameysay oo xabadka ku haydiba maanta ka soo horbax salaanta u dhaafaysa mizaajkaaga iyo moodkaaga dhan baa isbedelaya walidaalika waxaad arkaysaa waxaan ugu badan maanta moodkayga caadi ma aha caadi mihi maalmahan oo dhan waxa laga yaabaa qofka inuu yiraahdo kan ahlu diinkan inuu yiraahdo jin baan isaga shakisanahay kan kale inuu yiraahdo buufs baan isaga shakisanahay oo paranoid baan ahay لكن وحو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت المامي ضيقة إساقا قفك كو إيماني إنو يهي ضعف الإيمان إنا ضدك كدد
oo aadan salaanta aadan ka qaadin oo salaantii aadan la raadsan oo meeshay fadhiyaan aad ka oradid oo masjid walbana aad tiraahdo masjidka ma tagay afartan inoo garka dhaadheer baan u nacay masjidka ma tagay meelaha dumarka isugu yimaada maxaa la naagaha maraha jiidayaan nacay wadaadadan maanta dhan xalaal iyo xaaraam qofka markuu isku arkay iimaankiisa dacfi ku jira maxaa sallallahu alayhi wasallam xadiis uu yiri mu'minku ya'laf wa yu'laf lahu المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ويؤلف